waxaan leeyahay beeldaajaha khayr allah siiyo casumaadaan uu noo sameeyay maanta run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay inaan qadadan ka soo qayb galo kaliya waxaan hadallo ku darsanayaa oo kaliya waxa weeye beeldaajaha waa la shaqaynay intii bilowga ahayd si wanaagsan baanu abaabul fiican baanu samaynay waxa weeye dal iyo dibad baan isaga nimi waxa weeye meel walba waa ka nimi waxa weeye dadaal iyo juhdi lama yaraysan xaflad la qabto xafladii ugu weyneed baanu u samaynay uma aanu kala harin niyad ahaan laab ahaan iyo ficil ahaanba marka waxaan leeyahay hawsha hadda waa bilowbi inta ay haynoo ahaato oo weli waxa inoo dhiman intii in ka badan Soomaalidu ama gaar ahaanba aan raahdee dadkan ka dhalanay reer bariga ah waxa yaqaan wax la dhaho laab la kac marka hore waa la shaqaynayaa waa la abaabulayaa hawsha xirka la geynayaa hadhowdiina waxa weeye maalinba in yaatro marba xuluf baa baxaysa iyadana waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan inta kaga harin waxa beeldaajaha ka muuqda wanaag badan aqoon baa ka muuqata waxa ka muuqata cibaada ka muuqata waxa ka muuqata daacadnimo ka muuqata waxa ka muuqata wax halaal wixii isin iyo dhaqan lagu yaqaan ka muuqda aqoon diiniya iyo mid maadiya intaba insha Allah taala isagana waxaan ka rajaynaynaa inuu intaasba dhammaan ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideeyo ummadda reer Puntland uga faa'iideeyo gobolka bari oo u baahan si khaas ah ugu baahanna inuu isagana si khaas ah uga faa'iideeyo inagana waxaan ka rajaynayaa inaynu garbihiisii noqono oo hawsha inta ayna kaga harin intaas waa iga dardaaran munaasabadan hadal badan uma baahna waxaan leeyahay beeldaajo ku mahadsantahay qadadaan ugu casuntay inaguna waa ku mahadsannahay si aan uga soo qayb galnay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh beeldaajo laba eray raahdo beeldaajo guud ahaan intii xafladaada iyo muxuu ahayday maqaamka aad fadhido u saciiday ee waqtiga gelisay waxaan rabnaa inaad u ducayso oo si niyad ugu ducayso in Ilaahay khayr siiyo qof walba muraadkiisa aan macsi lahayna Ilaahay uu muxuu ahayday gacanta uga dhiibo waxaan jecelahay mar kale gabdhaha beesha iyo gabdhihii kale ee muxuu ahayday Soomaaliyeed meesha xafladda joogay ilaa soo dhaweyntii ee ubadkoodii ka tagay oo guryahoodii ka tagay oo bilicdii iyo quruxdii meesha ka muuqatay suurto geliyay ina iyagana si gaar ah aad ugu ducayso waxaan gabdhaha aan ka raali gelinayaa intii xafladdu socotay anigu waa warwareegay gabdhihii hawsha hay banaankay taagnaayeen marka waxaan ku iri waa inuu ku shaqaysanay waqti waxaan gaaray taayadii aruntiina aada welina hadda halkay fadhiyaan marka beeldaaje waxaan jeclahay in gabdhaha si niyad iyo si gaar ah aad ugu ducayso waxaan jeclahay laba arrimood oo meesha ka muuqdo aan la xusin mid waa la xusay jaamacadda bariga Afrika waxaan jeclahay inaan si gaar ah ugu mahad celiyo hawl gaar ah oo halka aan ka sheegay oo meesha ka qabteen aniga iyo maamulka jaamacadda iyo guddiga umba isla og aad iyo aad baan muxuu ahayd ugu mahad celinayaa sidii dadnimada lahayd codsigayga ugu fuliyeen ee xafladuna ay u suurta gashay waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo dhakhaatiirta daawada halkaa geeyey oo ugu horeeyo farmasiga cadceed National Hospital maamulaheeda Dr. Yusuf Dr. Roble oo iyagu u taagnaa qof xanuunsada ama qof wax gaaraan oo daawada banaanka iyo biyaha dadka u hayay intii gudaha ku jirtay iyo intii dibadda ku jirtaba qofkii muxuu ahayd xanuun dareema dul taagnaa iyagana waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo waxaan jeclahay inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo madaxweynaha dowladda Puntland oo xafladda maalin ka soo horeeyay taasina ay keentay in xafladdu dhammaan mas'uuliyiinta dowladdu ay wada yimaadaan iyo intii kale meel kale ka timaado dowladda ha ahaadeen ama meel kale ha ka yimaadeen inta uu mahad celinaya beesha beeldaajuhu ka dhashay reerka Ali Saleebaan xafladda waxba ka dhiman wixii ka dhinaa waxaan jeclahay beeldaajo inaynu dhammaystiro oo gurigaaga ku dhammaystirto waxaa jira isma mudnaa inay madasha ka hadlaan oo maqaamkoodii iyo hadalkoodii aan helin waxa weeye iyagana inaynu si gaar ah qabiilaynu nahay aynu macsuulno u raali gelino iyadana waa codsanaya beeldaajaha ka codsanaya iyo guddiga qabanqaabada oo weli hawsha haya
qodobka ugu dambeeya beeldaaje iyo beesha beeldaajaha caleema saartay ma dhowa waa ku caleema saaray iska soco maaha waxaan rabnaa beeldaajaha waa aqoon-yahan inaynu aqoontiisa ka faa'iidaysano waa nin dhalinyaro ah ma rabno inuu aqoontii guri kula xiraado waxaan rabnaa inuu jaamacadaha wax ka dhigo waxaan rabaa wuxuu soo bartay inuu ummadda muxuu ahayd uga faa'iideeyo innaguna aynu dhinacyada ka istaagno oo muxuu ahayd waa arrintaadu waa dhammaatay eeyan arrintu noqon waxaan hortiina ka ballan qaadayaa beeldaajaha waanu wada hadalnay wuxuu rabaa inuu deegaanada muxuu ahayd soo maro waxaa ugu dhib badan deegaanka Qandala oo meeshii saldanadaasi ka soo jeeday ah geynta iyo amniga iyo waxa lagu geynayo keligay baa qaba aniga igu faataxay xilliga uu go'aansado beeldaajo kulleeydu waa iska amni bay u baahan tahay amnigiina waynu ka hadlay taas ba ilaahay waa noo suurto geliyay tanna waxa weeye waa suurtoobaysaa dawladdu waxay leedahay imkaaniyaad badan oo badeed oo ciidan leh oo muxuu ahayd saxiimadeed dheereeya leh oo maalintii 5 jeer 6 jeer hadii la rabo Qandala lagu tagi karo oo dekada loogu xiran maalintii beeldaajo diyaar garoobo anaa ballan qaaday inaan kaxayo saxiimadaha iyo ciidanku u joogaan inta uu muxuu ahayd halkaa joogo waayo waa meeshii saldanada beyska u ahayd maaha Carmo Boosana maaha iyadaana laga soo bilaabaya dabadina deegaanada kale baa la marinaya waxaan mar kale aan u mahad celinayaa utayda gaarka ah gabdhaha oo runtii suurto geliyay waxaan u haysanaa raggu halka qabayo halka laakiin waxaanu naqaano wax laga shaqeynaya badankood waa wax dumarku yaqaano ilaahay ha baarigo beeldaajaha waxaan rabnaa inuu si gaar ah gabdhaha ugu duceeyo waxa kale oo xusid mudan isimadii ilaa Nairobi ilaa hadda dhinacyada ka fadhiya ee beesha oo iyaguna si hagar la'aan ah iyagoo aan ka basidan shaqeynayay waxay leeyihiin xurmadooda gaarka ah ilaahay iyagana muxuu ahayd khayr ka siiyo ajar gaarana ha uga qoro waxaan kula talinayaa ismada beelaha Cali Saleebaan inay beeldaajaha gacanta ku hayaan tababaraan waaniyaan wax walba oo tala oo wanaagsan ay dhinac istaagaan magacayga waxa la yiraahdaa Nabadoon Cabdullaahi Bile Siciid ragga ka yimi Jubbaland baan ka mid ah waxaanu ku nimi meeshan 9 nin oo odayaal ah oo ka yimi Jubbaland markii horena caleema saarka u yimi dabadeedna tolkood inay maaragtaa bal dhulkay ka yimaadeen iyo arladii uga waramaan wixii khabaarna gaarsiiyaan baanu ahayn 8 habeen caawa 9 noo ah intaanu Boosaaso joogno 2 habeenna Carmaanu joogno habeenna Garow waanu joogno intaasaanu meeshaanu seexanaynay ka soo maqnayn marka dhammaantiin waxaanu idin ku mahad celinaynaa ilaahay mahadiha ka gaadho horta marka u horeysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo inoo sahlay waxa soo khayra ilaahay baan u mahad celinaynaa inta kadibna waxaan u mahad celinaynaa ummadii suura gelisay wanaagan doorashadan wacan ummaddu ka soo wada qayb gashay aan filaayo xataa iska dhaaf daarooda ummadii Soomaaliyeed oo dhan ku walaalowdo marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa isu imaatinkii beeldaajaha ummadda Soomaaliyeed inay ku walaalowdo calankeedii iyo khayrkeedii iyo magaca ilaahan jidana u soo noqdo innagana ilaahay sabab inoo ka dhigo inta kadib beeldaajaha waa ku soo dhaweynaya wanaagii faraha badnaa oo loo galay soo dhaweyntii dadaalkii faraha badnaa kharajkii faraha badnaa wixii loo galay waxaan leeyahay ku soo dhawow buraanburka hadda gabadhu tirisay qiimaha badnaa waxa soo dhano khayra ku soo dhawow ilaahayna ha ka dhigo hamuunta lagu qabo kii guta insha Allah bismillaahi kariim waxaan xoogaa aan idin xusuusin lahaa annaga gaalkacayaanu ka soo degnay ilaa gaalkacaya waxaanu soo marnay dhulka waxaanu soo marnay dhulkii abaari gubtay oo aan kulli dhowr sano roob ka diin oo xoolii baabeen oo dhulku qumad yahay marka waxaanu islahayn dadkii dhulka lahaa hadda u tagtaan waa tiiraayeysan yahay waa dhibaataysan yahay waa magaciisan yahay haddana waxaan u nimi dad iska farxaan oo iska sacabtumanayo abaartan iyo waxaan iyo aan dareemayn baanu u nimi
marka waxaan leeyahay arrinta abaarta ilaaha subxaanahu wa tacaala ay roobka isaga haya waana baari oo cidda barida oo niyo khaalisa ku barida ma qadinaayo waxaa ka muuqata inaynu meesha baryadii ka kibirnay baryadii alle inaynu ka kibirnay baa ka muuqata baryada alle haddii laga kibrano ciqaab baa la mutaysanayo waxaan leeyahay culimo waayeelo duqayti isimo gabdho baryada ilaahay ha loo soo jeensado dalkan abaartu gubtay ha laga danqado ilaahay ha la baryo dalka waa gubtay ninka u dhabagala oo mara wax geed la yiraahdo cagaaran baan way waa baabay dalka abaar baabiisay marka waxaan leeyahay ilaahu waa ku soo noqonay abaarta naga dulqaad ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahay idanki ilaahay waxaan ka baryeynaa madar degdega oo meesha islaamku joogo oo dhan camima baan ilaahay ka baryeynaa ilaaha macbuudka asaasan ka baryeynaa baryada ilaahay waa lagu tanaadaa waa lagu barbaaraa waa ilaahay cis iyo sharaf buu kugu yeelaa haddii baryada la waayona haddii reer galbeedkaas iyo waxaynu noqonaynaa dadka belada ah oo ilaahay khilaafay oo kale u ekaanaynaa haddii baryada ilaahay la waayo marka baryada ilaahay inaynu barino baan idinku guubaabinayaa beeldaajahana waa soo dhaweynaynaa waa ku saagootiyeynaa shirkan khayr ka badan ilaahay idankii soo dhawow baan leenahay annagu haddaanu kismaayo ka nimi hataa xafladan intii la hadlayay nala kuma sheegin oo lama oran Jubbaland waxaad moodaa inaanu geela saynta kaga meeshay kaga taal inaanu tolka kaga na baad moodaa inta waxa ii dheeraada annagu hadda tolkaanu u nimi waa ladanahay kismaayaanu joognaa maamul baa ka jira wax shidaaho weyni kama jiraan laakiin dhulkii aanu deganayn iyo dalkii dagaaladii baa naga barakiciyay dalkii dib u dejin buu rabaa haddii alla waa ku rooyay in dadkii dib loogu ceshuu rabaa inaad dalku waa kiiniya u gargaadhaan baanu rabnaa inaan rag iyo haween dadka naloo shiriyaanu rabnaayo dadka aanu la hadallo inaanu dadka waxa fiican oo aanu wadno gaarsiinaanu rabnaa waayo nin la yidhi dalkaagii oo hodan ah oo barwaaqaa ku soo dhawow tag maal gasho haddii alla waa ku roon yahay dad iska dhig waxay ila tahay dhambaal fiican baa loo keenan filaya dadka iyaga waliba hadda gumarnatooraha waxaanu ka codsanaynaa ragga waa waxbaanu ka aragnay waa la hadalay gabdhihii harti oo sharafta badnaa عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة كشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله يقين ما بعد مدح الشرفت له هو الرئي قدمها قولك يدوق الدقمة السمادة عقاشا ودونada وقرتك iyo maamooyinka iyo dumarka dhamaantood waxay ku salaamay assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh marka xigta naftina u darmay cabsida markasta waxa ka hormarsiya markii meel isku yimaado in cabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala is xasuusiyo taasna waa waajib marka koowaad haddana waxa mahad ballaaran la Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina mahad celino Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu alaniyatu wa sirru xafladda inta la ekeyd oo dad oo dhan isku yimaadeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida sharafta leh oo mahadi ku jirto amni ku jirna ugu dhameey Ilaahay baad leh subhanahu wa ta'ala innahu qadir ala kulli shay marka xigta mahad ballaaran waxa leh dadkii ka soo qayb galay xafladaas iyagoo ka yimid meel aad u fog oo dadkood yani qaarkood ay BC ahaayeen ama duruufo kale lahaayeen laakiin soo ajiibay yani invitationada loo geeyo suldaamada u geeyeen mahad ballaaran waxa leh guddigii qabanqaabada guddigii protocolka guddigii welcomingka kulligood oo har iyo habeen u taagnaa xafladan inay dhacdo mahad ballaaran sidoo kale waxa leh dumarkii decorationka qaabilsanaa oo iyagoo xaasas ah guryahooda ka soo tagay si ay u hirgeliyaan ugana tagaan wax qurux badan oo once a lifetime ah yani boqolkiiba sano ama 80 sano hal mar la qabto taasna bifadlillahi subhanahu wa ta'ala khayr bay noogu dhamaatay dadku waxa weeyday hadalkii waa la wada yiri wax yar un baartay markaas waxaan insha Allah bal ta'ala bal dadka soo qayb galay adiguna mahadnaq u jeedi hadii Allah idmo subhanahu wa ta'ala runtii farxad bay noo tahay inay khayr noogu dhamaato alxamdulillah alladhi tatimu fihi salihat dadkii waxa loo mahadnaqay saxaafaduna waxay leedahay mahad gaar ah iyagoo ma taqaana har iyo habeen u taagnaa inay ka gudbiyaan sawir qurux badan oo dalkoodiina ma taqaana ku difaacaya oo sawirkaas ka gadmay adduunaha loo jeedanay laana waxa isku yimid ummado dhan ba xafladan isku yimid iyagana waxa leenahay jazaakumullahu khayr anigoo soo koobay hadii Allah idmo insha Allah intii nagala soo qayb gashay xafladan iyo intii ka soo qayb gali weeda iyo intii qulubta nagala jirtay kulligan waxa la jazaakumullahu khayr
sidoo kale waxaa u mahadnaqayaa guddiga amniga oo dowladda ugu sarreyso ciidamada qalabka sida oo iyaguna mataqaana u taagnaa siday mataqaana u sugi lahaayeen amniga iyo dadka mataqaana ka soo qaybgalayaasha xafladda wufuuddii nooga soo timid mataqaana gobollada qaar iyaguna waxay leeyihiin mahad wasiiradu mahad bay leeyihiin sidoo kale intaas baan kusoo koobayaa waqtigoo kaaban oo mataqaana salaadii casarna dul taagantahay haddii alla idmo marka xigta waxaan kusoo gabagabayn lahaa insha allahu tacaala in mataqaana ilaahay qulubteena isu soo duwa haddii alla idmo dambigeena ilaahay dhaafo dambiga waalidkaas ilaahay dhaafo qulubteena burcada isu mariyo ilaahayna mataqaana roob noo keeno meeshan aan ku kulanna ilaahay nooga dhigo meel khayr qabta subxaanahu wa tacaala haddii alla idmo kula keenna kulan maqfiro isu tageenna isu tag maqfiro insha allahu tacaala haddii alla idmo ka badanna waa iskugu imaan doonaa insha allahu tacaala waa idinla jooga haddii alla idmo subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk bismi llahi rahmaani walcasr ila sahla fi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته